daawadayaal Raad TV International wuxuu halkan idinka soo gudbinayaa waraysi khaas ah oo uu la yeeshay gaashaanle sare Ibrahim Ali Barre Hanjeex. Ibrahim wuxuu ku nool yahay magaalada Dimashq ee dalka Suuriya. waraysiguna wuxuu ku saabsan yahay xasuuqii ka dhacay xeebta Jasiira 17 bishii 7 1989 xasuuqa oo ay ka soo wareegtay muddo 19 sano ah. haddaba Ibrahim oo eedda xasuuqa dad badani u tuhmayeen dhib badanna kala kulmay ayaa wuxuu halkan ku iftiimin doonaa sidii falkaasi u dhacay, ciddii amarka bixisay iyo dadkii fuliyeyba. daawadayaal waraysigii oo dhammaystiran waa kan ee daawasho wacan. 2008 goobtu waa Dimashq. halkan waxaynu waraysi kaga qaadi doonaa gaashaanle sare Ibrahim Ali Barre Guuleed. arrintuna waxay ku saabsan tahay arrintii xasuuqii Jasiira ee isla bisheedii 1989 kolka waraysigaasu qodobo badan buu yeelan doonaa. Ibraahimna wuxuu inagu jawaabi doonaa su'aalo badan maadaama Ibrahim muddo dheer la lahaa wuxuu ka dambeeyay xasuuqa. halkan su'aalahaynu ku weydiin doonaa waxay noqon doonaan qaar xaqiiqada iyo haddii uu marxaati u bixinayo ama uu jidbixiyo u noqonayo arrintaa ka dulqaadi karaya. marka waxaan ku bilaabayaa su'aashiisii. Ibrahim, bal marka ugu horreysa waxaad nooga warantaa shaqadan ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed sidaad ku bilowday, waqtigii aad bilowday iyo meelihii aad ka soo shaqaysay, bal taariikh ahaan si aynu dib ugu noqono. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan ku faraxsanahay inaan la kulmo maantay oo Arbaca bishana tahay 9 bishii 7 Cabdirasaaq Cusmaan. Cabdirasaaq ciidanka waxaan ku biiray 63 anoo 18 jir ah. waxaan haystay fasalka elementary-ga. markaa waxaan ii soo bedelay ciidanka cirka ilaa iyo 71 waxaan ahaa ciidanka cirka. تضوات يكون آخر كذي وحال قال امتحان وحال هذا روشكا أوديسا يا أوديسا كل كمية تفكير يقولين هذا اللي يقال ألقى صدق سلاس وجري بلو تبغى حروسنا النقضي هي شنتي تضوات يا شنتي عشان النقضي ألقى سبحان كل الله بيحدق له كثر سبعين كحوق ذلك الصوماليين أنت كده مسبيرات لما كسر شقيين من الوقوي إلا يجلس كحافظ إلا أي حد بين أنا كشقين حوق ذلك وايرين مركا وضمستي وحان قاري عشان نصري أنت أي تاريخ إذا حق عيدك haddaynu u soo noqonno arrintan galabta halkan aynu u fadhino oo 19 guuradeedii ay tahay 17 bishan oo wiig naga xigo. arrintaasuna qadeedeedu muddo dheer taagnayd. dadkii lagu xasuuqay Jasiira oo ilaa imikada meel loo saaray aanay jirin. adigana culays badan baa ka soo fuulay oo dhinac walba leh. haddaynu dib ugu noqonno xasuuqa Jasiira xilliga uu xasuuqaasu dhacay xil nooceeya ama darajo ama halkaad ka shaqaynaysay adoo soo koobaya su'aasha. waxaan ahaa gaashaanle sare waxaan joogay guutada labaad oo taangeer. aynu ka sii daadegno su'aasha afraad ama su'aasha saddexaad waxa weeyaan waxa jiray mudaharaad dhacay 14 bishii 7 waxa mudaharaadka ku dhintay mudaharaadkaasoo ahaa mudaharaad shacbiya oo maalin jimca masaajidkii Sheekh Cali Suufi dadku ka soo dareereen iyagoo oo ka soo horjeeda xaalad markaa taagnayd iyo baaq ay soo saareen kooxdii manifesto. masaajidka dadkii ka soo baxay mudaharaadka dawladdu ka hortag bay samaysay. waxa ku dhintay halkaa sarkaal baa ku dhintay sare oo ciidankii nabad sugidda ciidamada hangashta ahaa. sarkaalka waxa la oran jiray Aadan Magan waxaanu u dhashay beesha aad ka soo jeedo. kolka dadku waxay lahaayeen xilliga dadkan la xasuuqay waxa loogu aargudayay sarkaalka maadaama aad ahayd sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda. xog intee leeg ayaad ka haysay qabashada iyo laynta dadka intii aan lagu dhaqaaqin hawsha. horta kacdoon aad u xog badan
يا مالتا كبلوا مقالده gees ilaa gees ka bilowday aad u xoog badan ciidamadu maadaama ay markaas xoog lahaayeen waa damiyeen kacdoonka waxaa la isugu yimid markii u dambeysay masaajidka Sheekh Cali Suufi waa meesha lagu diray korneelka kaliya ma dhawaan kala dhintay laakiin asagoo u darjo weynaa hatta daraawiishta ninkii waa dhaawacmay marka ما قبل أنا إن كان لو أريه لكن محيا لو حب كعدو ربي دولة اللي بقوله واحد من لو أريه واحد كوي ذاك كعدو كي دولة اللي بقوله كي كوريه وها وكاسو كلا تا لكن مركز من دولة أي أودي ضعيف هاي مركز لكن عيد حب لها شري كعدو كينا قعدت كوقبتي كلنا أريه مركز ما بيكره حلو أريه هالقفة محيا دولة ما بيروح قبته بقى والله بتلقى dadka mudaharaadka dhigay ma yahayn qabiil kaliya ee waxay ahaayeen dadkii ka soo dareeray salaadii jimcaha ee 14kii bishii 7 89kii ogaanshaha dawladdu maxay u xasuuqday dadka beesha kaliya u badan waxa way horta wax war anu heega ma horta ku jiray ma soo bixin anu gacantaana anu ordahaya oo jiniska ciyaariga ka jabay gacanta kalka midigta hay sarkaal saraad ahayd oo dawladii ka tirsan xog badan heli karaya wixii dhici karaya ogaan karaya sarkaalku waa amni siyaasi baa siyaasadda waliba caa'iladii marka dalka haysatay baad ahayd marka xog badan baad heli karaysaa waxa dad badan baa anka yiraahdaa waxa weeye caa'ilad ma hayna runtii ciidamada qalabka sida saddex nooc ay haayeen booliiska Axmed Jaamac oo isaaqo habar jecel haystay ciidamada asluubtana waxa haystay Ismaaciil Axmed Ismaaciil oo habar yoorisa oo musaara ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Masrax Maxamed Siyaad baa hayay markaasi malgaar u sheegay marka arrintu caa'ili ma ahayn arrin dawli ahayd dadka xumaanta ka doonaya ayaa arrintu caa'ili ahayd Maxamed Siyaad caa'ili wallah bas qabiil baa nahay laakiin nidaamka dawligu ma ahayn mid caa'ili ku dhisan maxay yeelay ciidamadii qalabka sida oo amniga ahaaba raamna sax bahayst هاي سؤال شو كويديني وحوي ما واحد لا ده هاي واحد أول حي حلقة مظاهرات كاسودعي يحلقة ديل كانوا دعاية ضد كهبين كجوريها لقوا الرصة دي سدح معلومات سدح ذا معلومات ما حبك كمان وجاين واحد صعونة يدولة دوّد ما دام هذا هيد قاشان الله صار واللي بقى مسؤولة هيد جوتتها جيدة هيستا وحبك كمان وجاين بدله ترى يوحنا كوجا منا مشرين وحن كوجا عدين دونا سؤال حاجة صوص على إلى وحبك وجين أريتها هاي نكجود ابن سؤال halkaad joogtay habeenka dadka la laayay mutada labaad oo taangiga ayaan joogay laakiin waxa ila soo hadlay markii saacadu 12kii ahayd General Maslax Maxamed Siyaad tariixa ciidanka ahaa waxa tagtaa uu yiri daamay hotel daamay rabsha ka jirtay ciidan adigu horin dhar ayaan ku soo baxnay ninka igu xigay oo ila socday wuxuu ahaa ina wulan waa nin umraara oo shacab isaaqo rajal wuxuu ahaa وحيل سعى سركل كلا صوماليات علي سيادين اللي يرهدوا نسبة توراه هو محمود أفرح اللي يرهدوا أبدا بقول لهم كل وايد هذول قالها سعاية مركا وصوب حنا دامي بانو نبي دامي مركا أو دامي دار على دامي اللي هذا وإنه هو مرصلا باو يدري ماشى محاكش وحكم شرب دامي إيش مصلح غرفة عليا تري ماشى حكم بشرب أنا كوريل بارها ما كحشت بقول يلا بقول يبتاس كوريل وحو حكمه قوتو أي حكمه استاذ وكلته بدك شو أكلته وتانير أو عليه. لكن كورك عليه وحيره وحتى كذا تريبونك تقبيه أمر بيوسيه. تريبونك أيارو نبيت. تريبونك أيا وحنوي بتكاس كبيوسيه من التاريخ إيران بدأ ولصق ولا درع إنك شو حياة الموجية. وراء عليه وحان تقني حافظ بالحوم اللي يرهد. شن جنب بيحيان المسرحوية. أمر بيحيان وحير هذين. لأن يظهر وقويه. وحافظنا ما قاعد حافظ ما قوي إنه يكون بالله لما سعون حتى أروح هلا الرافو لا هلا جيو رفشة بدل ماشي كبدار ما لها كل رفشة يا شفتي كورس كم مرة قبل لك والله أنا كم مرة هاي اللي وقان تجدوا حي هيد صبح دام يتك هذا هالكائن مو بهاي ما سوق عشان هذا حي ساقه متعللة هذا هو لا حكوا جاي بيش يثبت كل ليلة قار حكوا جري هويه اسمه ثورة كل يسلح عليه وقلت له حق ما حق إذا ما يحيروا سو ما اسكت جري إذا كان غير haddaynu u soo noqonno su'aasha ku xigta maxaad u malaynaysaa in lagugu eedeeyay gumaadka
maxaa adiga gaar lagugu saaray horta waxaa la yaabaa weliba aan u sii gudbo ninkii ugu dambeeyey ee ka badbaaday qof shakhsigii kaliya ka badbaaday Umar Musa la yiraahdo markii ugu dambeysay Kuwait buu joogay ninkii kaliya ka badbaaday ninka ka badbaaday xasuuqaas wuxuu warbaahinta caalamka BBC-da u sheegay inuu canjeexaha hogaamiyihii ciidanka dadka laayay maxay tahay sababta markaa maxaad iskaga dulqaadi karaysaa arrinka intaan ka jawaab waxa lagu eedeeyay meesha waxa isweydiin mudan wiilkan yar oo asagoo hurdo guriga laga soo raafay wuxuu ku ogaaday yaa u sheegay ciidanka xataa inuu aqoon wato wuxuu ku ogaaday wiilka yar soo ogaan karaa ciidanka cidii wadatay waxaan ku iri gaas guuta ma taqaanaa guuta gaas waxa weeye 3 guuto anuu guutaan joogay gaas baa meesha socday baan ku guutadu waxa weeyaan gaaska wuxuu yahay 3 guuto anuu guutaan joogay كمان ترسل عيدا كاسة وحالها وسيرة قاش عندك كيت كذا أنها تانجيان هي مرة ما تانجيان ماشي وحال يابل كو وحوت ليها الماشي إيه كانوا على يابل سكن شوك بويه لكن هدي أنشوي ماشي هدي أنشوي وحكتمت أهرنتها أنا عشها إذا كان قابل أنا هو ماشي مواجهة عد وسرقالك مرخاتك يا كسبي حي أسكتي بحيصور رافين قرنيلو مجره سراكيل كله dad tujaar ah amarkay bixiyaan wuxuu ahaa wiilasha yar oo rabshada sameeyay hal raaf hay inanku saraakiil badan baa dalka jirtay muxuu u soo qabsan waayay adiga ku soo qabsaday hadii maanta qof kale ka badbaadi lahaa marxaati labaad baa la heli lahaa waxa loo oran lahaa kaasa loo tagi lahaa isagii oo kaliya jooga katiisa ma ahayna waxa weeye raggii aan ka fujiyay oo magacyadooda wax badan qoray oo iska mid ahaa Xuseen Xasan Jaamac waa nin korneyl oo Briyoolis saxaaqa oo qaasin ka sii fod وكوريل أسنى هبر يونس بارل بانتو كيهاي إبراهيم روس وأنا هبر أوله فول مركان أي أنكفوا شين هاي أفر سرقال بلا سعودي أسايا قال هلا وديه أفر سرقال وحنك قرر يعني كل أوري شري بقى عيسى سموني ونكي بربرا كهول قلي أمريكا قدام بيسي وحكم لها فجأة أنك قرر هاي يومين كلي هذا عبد الله هذا ينا أنا هبر أوله أصلا درحتي درسي سبعة قرن وحكم لها حسين عمران وأسايا إيا لا soo baxay ilaa iyo 5 oo kaleeto oo heeradiisa oo hadana la soo baxay mar labaad oo markii saddexaad weydii asaga sarkaalkii baa waardiye oo waxa ninkan waardiye baan ku maadaama la jeer la soo baxay ninkan oo lagu noqdo la soo baxay asagii baan ku ninkan waardiye ka noqo waa joogay weydii holo wuxuu joogaa Denmark ku jooga barka Ingiriisku taga Xuseen Cumraan baa weydii inaan ninkii waardiye uga dhigay xoreelka حسين حسن إن كان دقي ويدي هاي ضدكن إن كان دقي ويدي ضدكن عاد كدقي سو هذا عنو ضدك الليل هيو أنا كان دحقله عيال كان ليلها سراكيش يستأجر وسيد ليلها أنا كان دحقله ضدكن عاد كدقي سو أركيسي كان سراكيشنا الله ده وانكدعنا يا مركز أركي حالة دو إني كدو أنت هاي حالة دي أي هايد وهذا كان كدعنا يا ogaanshaha miyaana dareemin markaa in meeshii dil ka imanayo ilaan waa adigan saraakiishii ba ka dhigay wax mas'uuliyiin oo ka sarreysan ma la xiriidho ma tiri meesha arintaas ka socotee ka warhaya horta marka Jarmadi waa tageen marka taliyaha gaaska ku sugnaa meesha iyo korneylkii dilka fuliyay yaa ku sugnaa meesha marka bayd baan oran jiray aynu soo noqonataa su'aashaydii ahayd maxaad u malaynaysaa in arintan dusha lagu saaray taabal aynu ka jawaabteedii imika aynu eegno waxa weeye rag badan soo kabaan ori kama dhicna ku sheegay oo nin walba leh hawiyale isaaq leh oo badan ay soo raafeen faytaan baa kamid ah dawlihi shiriftooko baa kamid ah niman ogaadeena kamid ah nimankan badan oo isaaq kamid ah ragii waxay yiraahdaan anjeex baa la daafacay ninka gaaska wixii korreel baa meeshana taliyaha joog yiri amarkuna wuxuu u bixiyay dhalinyarada hal raafay ma ahin saraakiisha iyo raafay saasa anigu muwaajahada dagaalka u keenay هاي تنوات تي وحي عاد قبطي عادوكم محادو ملاينا سأرين تعوليس كان لكن كذا لقاقة صاري واللقو يري عن شيء حبا كدن بي حسوقا رجعنا يري عن شيء حوالي يري عن شيء حوالي واحد مقال لوكش فاك علي مقال يوضع فاك علي ياكو سيداي عن شيء حوالي سيداي عن شيء حوالي سيداي عن شيء حوالي سيداي يلقى يركع وصوص عطا يعني مرأة نيروبي إبد يعني كاغا شاكين دونا صابت كوفا كذا يماشي وشوفيردي intaynan u gudbintaa tan adigu iyaad u malaynaysaa inay arrintan ka dambeeyeen oo adiga maxaa lagugu soo riixay arrintan dhexda ma taalo shaki ma arrintan tan ciidan taalo ma ahan ciidan qabiil hogaamiye taliyo leeyahay
وحين هالوجيس تريها مسؤولية تريها مسؤولة yaad adigu hadda maanta wax weeye rag badan baa halkan jooga ragga halkan fadhiya ee markhaatiga ka ah waraysigan waxa kamid ah Axmed Daahir Cabdi Maax oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Soomaalida ee Suuriya waxa kaloo halkan fadhiya niman ganacsadayaal ah oo uu kamid yahay Xuseen Cali Maxamed Colaad oo ganacsada ah halkan soo gaaray Somaliland ganacsi ka wada xagga Finland ku nool waxa kale oo kamid ah Xuseen Xasan Dhagjar oo isaguna ganacsada oo Hargeysa degan halkan shaqaale u soo doontay kolka ragganu imika way joogan meeshii haddaynu kugu soo noqono adigii yaad saaraysaa arrintii aad leedahay maadaama aad tiri anigu arrinkii kamaan dambay cid sarkaal saro oo xog badan hayo xilligaa joogayna aad tahay yaad ku gudbi arrinkii yaad xilkeedii iska saaraysaa oo aad markhaatina ugu samaynaysaa inta taan soo gudbin horta meesha caasimada dalka ahayd madaxweynaha dalka joogay wali dhaxaa joogay wasiiradii baa joogay dawladda oo dhan baa joogtay aniga darajadeena korneel baa laakiin kuwa jawraal qolo jeneraal Ibrahim Xasan rag ay dacwooyay magacaygan ma yaqaanaan darajadeena ma yaqaanaan arrintan shan nin baa amarka bixisay maslax maxamed siyaad baa u horeeyay duudi baa ku xigay jeneraal duudi maxamed duudi Saciid Mariina ku xigay oo ah ciidanka badda taliyaha ciidanka cirka taliyaha howlgelinta wasaaradda gaashaandhiga dhuud ee green ninkii la oran jiray ma hubo wasiirka gaashaandhiga uu la socday laakiin wala socday baa la yiri maxaa yeelay qaar baa baabuur ku jiray Xuseen Bataan marka waxaad leedahay intaas soo sarkaal baa amarka bixisay arrintan taliyaha xooga iyo saraakiishii la socotay iyo amarka dhiibay waa maslax maxamed siyaad barre markaa maslax maxamed siyaad barre dhuudi maxamed nur dhuudi Saciid Mariino green oo maslax madaxu yahay wasaaradda gaashaandhiga waxa kaliya miyaad markhaati u helaysaa haddii raggaasu ileen dil weeye waxaan aad leedahay raggaasaa fuliyey ama amarka bixiyey haddii ay yidhaahdaan maanaan ahayn ama maanaan samayn markhaati ma u helaysaa ma soo roobaysaa marka maxaa maxkamad loo saari waayay raggaa laayay su-aashii maxkamaddii ha la gaadho adigii hadda halkan waxaynu u fadhinaa waraysi baan adiga ka qaaday qolaal markhaataa loo helaya in uu ka dambeeyey maslax maxamed siyaad iyo saraakiisha aad sheegtay ee dhuudhi Saciid Mariino iyo raggaasu inay ka dambeeyeen ragga amarka ciidanka inuu halkan yimaado ayaa bixiyay Nicola Taariq adiga waxaan halkan u fadhiyay aan xogta kaaga doonaya oo taa weeyaan amarka ciidanka inuu halkan howlgal ku fuliyo waxa bixiyay jeneraal maslax maxamed siyaad barre iyo jaalnadii la socday yaa bixiyay inuu amarku halkan amarka ku yimaado ragga kale amarkooda ayay ku yimaadeen iska imaanin fulintu waa gooni waa iska warsan doonaa fulinta raggii falkan fuliyey xasuuqan fuliyey yaad ka carabaabi kartaa ogaanshaha kow taliyaha gaaska diiriye xirsi labo ninkii fuliyey gacanta ku fuliyey waxaa weeye dhagabcayr waxaa la yidhahdaa Axmed Nuur Xasan waxaa la yidhahdaa Axmed Nuur Xasan baa la yidhahdaa dhagabcayr baa loo yaqaanaa aniga wala dhaxay laga yaqaanaa waa aad walgalku u fulin jiray ninka ayaa gacantiisa ku fuliyey wax saraakiil oo ku hooseysa ama askartii fulisay cid iyaga miyaad waxaa markhaati ka ah arrintaa Nairobi markaa nimid annagoo nin xabaalayna yaa nin hadda ka hor ugu yiri isla annaga waliba ninkaa la diray isku dhow yihiin yaa wuxuu yiri adbadad baan leysay anigu ugu yiri intaa yiri maxaa dadka leynaysaa waa ugu sheegi doonaa annagoo nin xabaalayna yaa shufeerkii baroonka waday ayaa sheekeeyey aadan gaboobaa la yidhahdaa baroonkii dadka lagu laayay baroonkii ma ku leeyahay baroonkii asqori baa lagu laayay dadka baroon lagu laayay baroonkii saddex gaar waardiyaha ahaa meesha taagan hal baroon iyo laba gaari baxayeen oo laba gaarina dadku soo gaarin askarta iyo baroon markii kale tashaal loo gudbiyay dhaanaa loo gudbiyay yaa shookeeyay raggii markhaatiga ahaa ninkii ana u yeeray kaale baa ninkii uu sheekeeyay dhageysa arrinkan wuxuu ka sheekeeyey sida u dhaceen ragga markii la leexiyay oo meesha lagu leexiyay nin kabtan iyo halbaxdila waxa ahaa diiray ragga la leyn maayo askar badan oo ku raacday meeshii muran ma dhaxooda ka dhacay waagi baa ku soo bariyay shan nin oo dhagabcayr ku jiro askartii ay noo sheegay qaarkii hadda uu diiday markii daba uga shakiyay magaciisa uu diiday laakiin waa la heli karaa isi weeye yaa ku bilowday nimankii xabadda war maxaa sugaysaa ragga saas ah xabadda loogu baa loo laayay waana la isku qabsaday meesha nin kabtana oo markii igu sheegay nin Morgan waqtigiisa Kismaayo lagu dilay iyo laba xadig la wariba laba ahaayeen buu yiri yaa diiday la ragga iyo askar ninkaan fakaray
ما أقول عن بيروميتك أكتيدو أسقو أرض يا مريم بيور مركي ما موت هاي وواقف صوب لي بهاي بيور هاي مدي عرض كوتشي ما أنا توقم بيور هاي ري بس إن لا يبقى الريم بيور بس كيف أبغى أسيبه لك بتاعنا هرتيدو أعرف كم مري هل كاسو كم حيبه ما تشرتو يرو وحوس كيو حييو ليش هو لغة بريستي بيوري بس كان ليش لغة حيي وحو كفك لي مش مكتير حب وكفك لي بيور من كان لا عن شهبة فل لي أرنتا مركا ninka korneelka ayaa furiyay saddexdii baabuur oo ay wateen baroonka waxa waday aadan gaboobe bariga uu sheegay hal baabuur oo kale waxa waday isbitaalada hasna sharmaaka cadde sharmaaka maxamed baa leeyahay minna waxa leeyahay dalmar baa leeyahay yarka dalmar leeyahay askarta kala soo baxay buu ahaa neerolan ku helay yarkii oo ku warsaday sidii wuxuu laayeen wali wax rag saaq hayla joogay markaa warsanayay Nairobi أسوق سي فوش ما يروح لا يوم حاسوق شيء كذي مركا صدق هذا بابور بيوتين صدق راسين معنا كل ودي كرر كاسة فرية جود هنا وحامر كي وهو شيء تليها كاسكا جدار كي أمر كبيرة ما إن جسيرة عنه ولا غير ما أرد حمر ماشي مركا أنكسوك بحاجة ماشي ده كان نقطة حرة دي بعد عنه مركا حتى له أنشح بدت كلاهي ما أمر كلام بحشي ماشي يقول بالله ما كي كفر يبالله ما حاول ما يعطيان يعني واس أهم طالب من أول aynu soo noqono su'aashan xilligii dawladda Maxamed Siyaad xilligii xasuuqa soo dhacay ee dawladda Maxamed Siyaad ma la sameeyay wax gudiya oo baaritaan sameeya لا نباك علي لا نباك علي تري بوليس كا كعي ولا نباس لك عي شن جودي هلا قبتي لبنن labada neero baan ku arkay laakiin mid waa dhintay midna waa lagu diraa kuuyada dishay lacag bay ku arkay oo ku direen cali abdiraxmaan kii ugu jiray wasaaradda gaashaaniga maxkamadda maanta taariikhdu waa 9kii bishii 7aad 2008 goobtu waa Dameeshiikh halkan waxaynu waraysi kaga qaadi doonaa gaashaanle sare Ibraahim Cali Barre Guuleed arrintuna waxay ku saabsan tahay arrintii xasuuqii Jasiira isla bisheedii 1989 kolka waraysigaasu qodobo badan buu yeelan doonaa Ibraahimna wuxuu inoogu jawaabi doonaa su'aalo badan maadaama Ibraahim muddo dheer lalahaa wuxuu ka dambeeyay xasuuqa halkan su'aalahaynu ku weydiin doonaa waxay noqon doonaan qaar xaqiiqada iyo haddii uu marxaati u bixinayo ama uu jidbixiyo u noqonayo arrintaa ka dulqaadi karaya marka waxaan ku bilaabayaa su'aashiisii Ibraahim bal marka ugu horeysa waxaad nooga warantaa shaqadan ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed sidaad ku bilowday waqtigii aad bilowday iyo meelihii aad ka soo shaqaysay bal taariikh ahaan si aynu dib ugu noqono bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku faraxsanahay inaan la kulmo maantay oo Arbaca bishana tahay 9 bishii 7aad Cabdirasaaq Usmaan Cabdirasaaq ciidanka waxaan ku biiray 63 anoo 18 jir waxaan haystay fasalka elementary-ga markaa waxaan ii soo bedelay ciidanka cirka ilaa iyo 71 waxaan ahaa ciidanka cirka toddobaatan iyo kowdii aakhirkeedii waxaan galay imtixaan waxaan aaday ruushka Odessa dhulkii midowga Soviet Ukraine hadda loo yaqaan halkaas 3 sano soo jiray bilo dib waxaan u soo noqday iyo shantii toddobaatan iyo shantii soo noqday halkaas waxaan ku bilaabay xidigle ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed intii ka dambeysay meelo badan ma ka soo shaqeeyay meel waqooyi ilaa iyo geeska xaafud ilaa iyo meel aan ka shaqeyn xoogga dalka waa yareed marka ugu dambeystii waxaan gaaray gaashaanle sare intaas ay taariikhdayda xagga ciidanka haddaynu u soo noqonno arrintan galabta halkan aynu u fadhino oo 19 guuradeedii ay tahay 17 bishan oo wiig naga xigo arrintaasuna qadiyadeedu muddo dheer taagnayd dadkii lagu xasuuqay Jasiira oo ilaa imikada meel loo saaray aanay jirin adigana culays badan baa ka soo fuulay oo dhinac walba leh haddaynu dib ugu noqonno xasuuqa Jasiira xilligaa uu xasuuqaasu dhacay xil nooceeya ama darajo ama halkaad ka shaqaynaysay
adoo soo koobaya su'aasha waxaan ahaa gaashaan la sare waxaan joogay guutada labaad oo taangeer aynu ka sii daadegno su'aasha afraad ama su'aasha saddexaad waxa weeyaan waxa jiray mudaharaad dhacay 14 bishii 789 waxa mudaharaadka ku dhintay mudaharaadkaasoo ahaa mudaharaad shacbiya oo maalin jimca masaajidkii Sheekh Cali Suufi dadku ka soo dareereen iyagoo oo ka soo horjeeda xaalad markaa taagneyd iyo baaq ay soo saareen kooxdii manifesto masaajidka dadkii ka soo baxay mudaharaadka dawladdu ka hortag bay samaysay waxa ku dhintay halka sarkaal baa ku dhintay sare oo ciidankii nabad sugidda ciidamada hangashta ahaa sarkaalka waxa la oran jiray aadan magan waxaanu u dhashay beesha aad ka soo jeedo kolka dadku waxay lahaayeen xilliga dadkan la xasuuqay waxa loogu aargudayay sarkaalka maadaama aad ahayd sarkaal sare oo ka tirsan xukuumadda xog intee leeg ayaad ka haysay qabashada iyo laynta dadka intii aan lagu dhaqaaqin hawsha horta kacdoon aad u xoog badan ayaa maalta ka bilowday magaalada oo gees ilaa gees ka bilowday aad u xoog badan ciidamadu maadaama ay markaas xoog lahaayeen waa damiyeen kacdoonka waxaa la isugu yimid markii u dambaysay masaajidka Sheekh Cali Suufi waa meesha lagu jiray korneelka kaliya ma dhawaan kala dhintay laakiin asagoo u darjo weynaa hatta daraawiishta ninkii labaad waa dhaawacmay marka ma qaba anugu ninka in lagu aarayay laakiin maxaa yeelay wuxuu ahaa kacdoon rabay dawladda in lagu rido waxa nin loogu aarayo waxa ka wada kacdoon kii dawladda lagu saaray kii ka horreeyay buu ahaa oo kaasoo kale taa laakiin markaa dambe dawladda ayaa awoodeedu daciif ahayd markaa laakiin ciidan xoog lahaa jiray kacdoonkiina gacanta ku qabtay kalena eriyay marka ma dhihi karo waxaa lagu aarayay hal qof maxaa yeelay dawladda dhan baa lagu qabtaba oo loogu talagalay dadka mudaharaadka dhigayay may ahayn qabiil kaliya ee waxay ahaayeen dadkii ka soo dareeray salaadii jimcaha ee 14 bishii 789 ogaanshaha dawladdu maxay u xasuuqday dadka beesha kaliya u badan waxa weeye horta wax war aanu heegama horta ku jiray ma soo bixin anugu magaalada soo bixin gacantaana aanu ordahaya oo jiniska ciyaarayaan ka jabay gacanta kalka midigta hay sarkaal saraad ahayd oo dawladii ka tirsan xog badan heli karaya wixii dhici karaya ogaan karaya sarkaalku waa amni siyaasi baa siyaasadda waliba caa'iladii markaa dalka haysatay baad ahayd marka xog badan baad heli karaysaa waxa dad badan baa aan ka yiraahdaa waxa weeye caa'ilad ma hayna runta ciidamada qalabka sida saddex nooc ay haayeen booliiska axmed jaamac oo isaaqo habar jecel haystay ciidamada asluubtana waxaa haystay ismaaciil axmed ismaaciil oo habar yoorisa oo Muuse Carra ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maslax Maxamed Siyaad baa hayay markaasi malgaar u hayay marka arrintu caa'ili ma ahayn arrin dawli ahayd dadka xumaanta ka doonaya ayaa arrintu caa'ili bay ahayd Maxamed Siyaad caa'ili waa la bas qabiil baan nahay laakiin nidaamka dawligu ma ahayn mid caa'ili ku dhisan maxaa yeelay ciidamadii qalabka siday oo amniga ahaaba raamel isaaq baa haystay هاي سؤال شنو كويدينيا waxa weey ma waxaad leedahay waxa u dhaxeeyay xilliga mudaharaadkaas u dhacay iyo xilligan dilkan u dhacay dadka habeenkii guryaha laga urursaday 3 maalmood 3 maalmood ma xuba kamaan ogeyn waxa soconaya dawladdu wada maadaama aad ahayd gaashaan la sare waliba aad mas'uul ahayd guuta taangeeda haysta waxba kamaan ogeyn baad leedahay iyo waxaan ka ogaa midna ma jirin waxaan kugu cadeyn doonaa su'aalaha ka soo socda inaan waxba ka ogeyn arrintan aynu ka gudubna su'aasha halkaad joogtay habeenka dadka la laayay guutada labaad oo taangiga ayaan joogay laakiin waxa ila soo hadlay markii saacadu 12 ahayd General Maslax Maxamed Siyaad oo taliyaha ciidanka ahaa waxa tagtaa uu yiri daabay hotel daabay habsha ka jirtay ciidan adigu horin dhab ayaan ku soo baxnay ninka igu xigay oo ila socday wuxuu ahaa ina wulad waa nin umraara oo shacab isaaqo gaashaal wuxuu ahaa waxay la socday saraakiil kala Soomaaliyeed cali siyaadin la yiraahdo nisba tawraha iyo maxamed afrax la yiraahdo baabad boqolin bay ku dhawaayeen aduu galaas ahaayeen marka waa soo baxnay daabay baanu nimid daabay marka aanu daabay daar cali daabay la yiraahdo inaa ugu muusala
ويديني ماشي محاكش وحكم جيران قدامي ماشي مصلحة ورث عليا ترى ماشي حكم جيران أنا كوريل بارها ما كحشت بقول ولا بقول يمتاز كوريل وحو حكمه قوتو أي حكمه ستاتو خلته بدنا نشوفه كليتا وتنجيل أو عليه لكن ورث عليا وحو يروح حتى كذا تليفونك تقبل أمر بوسي تليفونك أيام نويد تليفونك أيام وحنا نوي بالكاس كبوليسيو بالتاري عيران بدأ ولصق ولا درعب إنك شو حياة الموجية وارها عليه وحان تقني حافظ بالحوب اللي يرهن شن جنب بيحيان المسرحوية أمر بيحيان وحير هذين لأن يظهر وقوية وحافظنا ما قا حتى حافظ ما قوي إنه يكون بالله لا مسحول حتى أروح هلا رافو لا هلا جيو رفشة بدنا ماشي كم ما لها كل رفشة يا شفتي كور شيء كم قبل لك والله يكون قبل هاي لي وقان تجدوا حي هيد صبح دامي تك هذا هالكائن مو بهاي ما سوق عشان قاش هذا حي ساقه متعللة هذا هو حكوا جاي بيش يثبت كل ليلة قار حكوا جري هويه هو اسمه ثورة ولا يسدح عليه وقلت له شوف حق نام حق إذا بدنا يحيرون سو ما اسمه جري إذا كان جاي haddaynu u soo noqonno su'aasha ku xigta maxaad u malaynaysaa in lagugu eedeeyay gumaadka maxaa adiga gaar lagugu saaray horta waxa la yaab waliba aan u sii gudbo ninkii ugu dambeeyay ee ka badbaaday qof shakhsiga kaliya ka badbaaday Umar Musa la yiraahdaa markii ugu dambeysay Kuwait buu joogay ninkii kaliya ka badbaaday ninka ka badbaaday xasuuqaas wuxuu warbaahinta caalamka BBC-da u sheegay inuu canjeexaha hogaamiyihii ciidanka dadka laayay maxay tahay sababta markaa maxaad iskaga dulqaadi karaysaa arrinka intaan ka jawaab waxa lagu eedeeyay meesha waxa isweydiin mudan wiilka yaro asagoo hurduguriga laga soo raafay wuxuu ku ogaaday yaa u sheegay ciidanka xataa inuu aqoon wato wuxuu ku ogaaday wiilka yaro soo ogaan kara ciidanka cidii wadatay waxaan ku iri gaas guuta ma taqaana guuta gaas waxa weeye saddex guuto anuu guutaan joogay gaas baa meesha socday baan ku guutadu waxa weeyaan gaaska wuxuu yahay saddex guuto anuu guutaan joogay kamana tirsanay ciidankaas waxa ahaa wasaaradda gaashaaniga kaydkeedaan ha taangiyaan hay mar ay taangiyada meesha waxa la yaab leh kow wuxuu taliyaha meesha ay keenay waa la yaab leh sakan joog buu yiri laakiin haddii aan joogay meesha haddii aan joogay waxa ka timid arrintaan ajeexa ciidanka hogaamiyo anigu meesha muwaajaha cad oo sargaalkii marqaati ka yaan ka sameeyay hay'ad askartii waxay soo raafeen korneelo mijiro saraakiil kale dad tujaar ah amarkay bixiyana wuxuu ahaa wiilash yar oo rabshada sameeyay hal raaf hay inanku saraakiil badan baa dalka jirtay muxuu u soo qabsan waayay adiga ku soo qabsaday haddii maanta qof kale ka badbaadi lahaa marxaati labaad baa la heli lahaa waxa la oran lahaa kaasa loo tagi lahaa isagii oo kaliya jooga katiisa ma ahayna waxa weeye raggii aan ka fujiyay oo magacyadooda wax badan qoray oo iska mid ahaa Xuseen Xasan Jaabac waa nin korneyl oo Briolis saxaaqa oo qaasin ka saa fod waa korneyl asna habar Yoonis baarul baan ka yahay Ibrahim Ruush waa nin habar awala fod markaan aan ka fujinayay afar sargaal baa la socday asaga yaqaan la weydiiyay afar sargaal waxaan ka garanayaa ninkii loo jiray magaciisa Sumuni oo ninkii barbara ka howlgelay markii u dambeysay waxa ka mid ahaa rag aan ka garanayo ninka la yiraahdo Abdullaahi قال هذا أنا هو أول أصلا درحتي دولة تبع قرآن وحكمها حسين عمران وأسجع يلا لا صوب حي إلا إيو شن الأكلته وهذه ساعة وهذا لا صوب حي مرة ومركز الضحالي ودي أسجع سرقال كيما الوردية وأنا واحد كان وردية بنقول ما دام الله شهر لبسوا بحي كان والقول نقول الله صوب حي السجع بنقول إن كان وردية كان نقول وشوي ودي هلا وشوي ديال ماك بوجوغا بري انجليز كنت حسن عمران بري هذا ويدي ان انكي واردو وري خريلكا حسين حسن ان كا دغاي ويدي هاي ددكن ان كا دغاي ويدي ددكن aad ka dhigayso hada anu dadka leenayo aan ka dhaxgalo ciyaalka leen laha saraakiisha istaajir waa sideen laha aan ka dhaxgalo dadkan aad ka dhigayso waad arkaysay kan saraakiishan alladii waan ka dhicinaya markaad aragtay xaaladdu inay ka duwan tahay xaaladii ay ahayd waa adigan ka dhicinaya ogaanshaha miyaana dareemin markaa in meeshii dil ka imanayo ilaan waa adigan saraakiishiiba ka dhigayee wax mas'uuliyiin oo ka sarreysa ma la xidhiidho ma tiri meesha arrintaasaa ka socotee ka warhaya horta markaa jarmadii waa tageen marka taliyaha gaaska ku sugnaa meesha iyo korneylkii dilka fuliyey yaa ku sugnaa meesha marka bayd baan oran jiray aynu soo noqonataa su'aashaydii ahayd maxaad u malaynaysaa in arrintan dusha lagugu saaray
taa bal aynu ka jawaabteedii imika aynu eegno waxaa weeye rag badan soo kamaan orid kama dhicna ku sheegay oo nin walba leh hawiye leh isaaq leh oo badan ay soo raafeen faytaan baa ka mid ah dowladda shariif dawko baa ka mid ah niman ogaadeena ka mid ah nimankan badan oo isaaq ah ka mid ah raggii waxay yiraahdaan canjeex baa la daafacay ninka gaaska watay korreel baa meeshana taliyihii baa joog yiri amarkuna wuxuu u bixiyey dhalinyarada hal raafay ma ahayn saraakiisha iyo raafay saasa anigu muwaajahada dagaalka u keenay haya tan waa tii wixii aad qabatay adigu maxaad u malaynaysaa arrinta culayskan lagin dhakada lagaaga saaray oo lagu yiri canjeex baa ka dambeeyay xasuuqan raggaana yiri canjeex baa lagu xiriyay canjeex baa lagu xidhay dagaal loo ma kacay magaalada oo dhan baa kacday yaa ku sii daayay canjeex baa sii daayay dilka yarka waa soo socotaa waan mar Nairobi imid yaan kaaga sheekan doonaa sababta ku fakaday meesha oo shufeeradii intaynan gudbintaa tan adigu yaad u malaynaysaa inay arrintan ka dambeeyeen oo adiga maxaa lagugu soo riixay arrintaanu dhexda ma taalo shaki ma arrintaanu ciidan talon isliiyo ciidankaanu ma ahan ciidan qabiil hogaamiye taliyo leeyahay wixii ciidan halu geystay taliyaha su'aaliya taliyaha mas'uulka yaad adigu hadda maanta waxa weeye rag badan baa halkan jooga ragga halkan fadhiya ee markhaatiga ka ah waraysigan waxa ka mid ah Axmed Daahir Cabdi Maax oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda Soomaalida ee Suuriya waxa kale oo halkan fadhiya niman ganacsadayaal ah oo uu ka mid yahay Xuseen Cali Maxamed Colaad oo ganacsada ah halkan soo gaaray Soomaaliland ganacsi ka wada xagga Finland ku nool waxa kale oo ka mid ah Xuseen Xasan Dhagjar oo isaguna ganacsada oo Hargeysa degan halkan shaqaale u soo doontay kolka ragganu imika way joogan meeshii haddaynu kugu soo noqono adigii yaad saaraysaa arrintii aad leedahay maadaama aad tiri anigu arrinkii kamaan dambeey cid sarkaal saro oo xog badan hayo xilligaa joogayna aad tahay yaad ku gudbi arrinkii yaad xilkeedii iska saaraysaa oo aad markhaatina ugu samaynaysaa inta taan u soo gudbin horta meesha caasimada dalka ahayd madaxweynaha dalka joogay wali dhaxaa joogay wasiiradii baa joogay dawladda oo dhan baa joogtay aniga darajada korreel baa laakiin kuwa joraal qolo general Ibrahim Xasan ragga dacwooye magacayga magacayga ma yaqaanaan darajada ma yaqaanaan arrintan shan nin baa amarka bixisay maslax maxamed siyaad baa u horeeyay duudi baa ku xigay general duudi maxamed duudi Saciid Mariina ku xigay oo ah taliyaha ciidanka badda taliyaha ciidanka cirka taliyaha howlgelinta wasaaradda gaashaandhiga duudi ee green markii la oran jiray ما هو وزير كاشان ولا سعودي لكن ولا سعودي بقى اللي يجري معي لقارب بابور كجري حسين بطال marka waxaad leedahay inta soo sarkaal ba amarka bixisay arrintan taliyaha xooga iyo saraakiish la socotay iyo amarka dhiibay waa maslax maxamed siyaad barre maslax maxamed siyaad barre duudi maxamed nuur duudi Saciid Mariino green oo maslax madaxu yahay wasaaradda gaashaandhiga waxa kaliya miyaad markhaati u helaysaa haddii raggaasu ileen dil weeye waxaan aad leedahay raggaasaa fuliyey ama amarka bixiyey haddii ay yidhaahdaan maanaan ahayn ama maanaan samayn markhaati ma u helaysaa ma soo roobaysaa marka maxaa maxkamad loo saari waayay raggaa laayay su'aashii maxkamaddii ha la gaadho adigii hadda halkan waxaynu u fadhinaa waraysi baan adiga ka qaaday qolaal markhaataa loo helaya in uu ka dambeeyey maslax maxamed siyaad iyo saraakiisha aad sheegtay ee duudi Saciid Mariino iyo raggaasu inay ka dambeeyeen ragga amarka ciidanka inuu halkan yimaado ayaa bixiyay kula taariikh adiga waxaan halkan u fadhiyay aan xogta kaaga doonaya oo taa weeyaan amarka ciidanka inuu halkan howlgal ku fuliyo waxa bixiyay general maslax maxamed siyaad barre iyo jaanadii la socday yaa bixiyay inuu amarku halkan amarkan ku yimaado ragga kale amarkooda ay ku yimaadeen iska imaanin fulintu waa gooni waa iska warsan doonaa fulinta raggii falkan fuliyey xasuuqan fuliyey yaad ka carabaabi kartaa ogaanshaha kow taliyaha gaaska diiriye xirsi labo ninkii fuliyey gacanta ku fuliyey waxa weeye dhagabcayr waxaa la yidhahdaa Axmed Nuur Xasan waxaa la yidhahdaa Axmed Nuur Xasan baa la yidhahdaa dhagabcayr baa loo yaqaanaa aniga wala dhaxay laga yaqaanay waxay aad walgalka u fulin jiray ninka ayaa gacantiisa ku fuliyey wax saraakiil ka hooseysa ama askartii fulisay cid iyaga miyaad waxa markhaati ka ah arrinta Nairobi markaan nimid annagoo nin xabaalayna yaa nin hadda ka hor ugu yiri isla annaga waliba ninka la tiri isku dhow yihiin yaa wuxuu yiri adbadad baan leeyahay anigu yiri
intaa iri maxaa dadka u leynaysaa waan ku sheegi doonaa annagoo nin xawaalayna yaa shufeerkii baroonka waday ayaa sheekeeyey aadan gaboobaa la yidhahdaa برونكي دتك اللي يقول لي برونكي مقبل برونكي أسقوري بالقول لي دتك برون ولا برونكي صدق قاعد ورديها مش تاني هل برون يلا ما قارب هين أو لما قارن دتك شيء قارن أسكت يا برون لقي كانت الشال لوجي بيد أنا لوجي بيد يا شوكي رجع مخاطقها لك أنا ويا ركالي بعد أنت وشكاني لقي سعر بكان وحكى شيء سيده كل عالم رجع مركل اللي حيي وماشي بيقول اللي حيي من كابتن يبغى هذا بعد الله وحها بديرين رجع الله ينهيه askar badan oo ku raacday meeshii muran ma dhaxawda ka dhacay waagi baa ku soo bariyay shan nin oo dhaga bacay ku jiro askartii ay noo shay qaarkii hadda uu diiday markii daba iga shakiyay magaciisa uu diiday laakiin wala heli karaa isi weeye yaa ku bilowday nimankii xabadda war maxaa sugaysaa intuu ragga saas ah xabadda loogu baa loo laayay waana la isku qabsaday meesha nin kabtana oo markii igu sheegay nin Morgan waqtigiisa kismaayo lagu dilay iyo laba xadig la wariba laba ahaayeen buu yiri yaa diiday la yarag iyo askar ninkaan fakaday ma ku dhacin buu meedka agtaydu asagoo ardiga maray buu yiri markii ma maqtahay oo waag soo bariyay baa buu yiri oo ay mugti carrada ku jirtay ma aanan toogan buu yiri maxaa yeelay dadka in la yaabaan rin buu yiri dadkii soo baraa sabiilan ka mid ah hortaydu orod ku maray halkaas oo ka baxay buu ما شرتوا يروح wuxuu isku xiyay meesha waa lagu abarisay buu yiri dadka meesha lagu xiyay wuxuu ka fakaray meesha martii xog buu ku fakaray buu ninka la anjax baa fulay arinta marka ninka korneelka ayaa fuliyay saddexdii baabuur oo ay wateen baroonka waxa waday aadan gaboobe qori baa u sheegay hal baabuur oo kale waxa waday isbitaalada asla sharmaaka cadde sharmaaka maxamed baa leeyahay منا وحالي هذا دلمر باللي هذا يرك دلمر اللي هذا أسكرتي إلى سعودي بابورك وحقيقة في كاس كيين فكان وير إنه كان أنا ماشي كان مخلي حمر وقاعدين كاجي عتكلا صباح لي حردي كان جيد كلا صباح يبوها نيران كوه يركي وأنكو ورسري سيدي وحول عيال ولا ورك ساعة إلى شو مكان مرسل هي نيروبي سو سي فوش ما يروح لا يوم حسوا شيء كيين مركا صدح هذا بابور بيوتين صدح راسين بانو كل ودي كورير كاسة فورية جود هانا وحامركي وهو شيء تليه كاسكا جنرالكي أمرك بحنيه ما إمان جسيرة عنه ولا جاي لما أرد حمر ماشي مركي أنكسوك بحينا ماشي ده كان نقطه حرة دي بعد هذه عنه مركا حتى له أنشح بعد كلاهي ما أمر كلام محشي ماشي جود بالله مكي كفري بالله ما حال كلام ما يعطيان يعني واس أخي مثال من وين أنا نوصل نقول سؤالشن حلقي دولتي محمد سياد حلقي حسوق صداعي دولتي محمد سياد ما اللي سمي واحد جدي أو باريتان سمية لا ربك علي لا ربك علي خليه بوليس كاك علي ولا ربك لك علي شن جدي هاللقبتي لمن لما نروح عنكو على خير لكن بدو دتي من waa lagu dira kukuuyada dishay lacag bay ku arkeen ku direen cali abdiraxmaan kii joog jiray wasaaradda gaashaaniga maxkamadeena haabal anoo jooga maxamed lagu dira horeel buu ahaa wuxuu u sareeyay maxkamadda ciidamada min abu kalsooli general baa soo dhintay saddexdii kale oo madaniyiinta ahayd baarlamaanka ahaayeen hadii raadi hadda walahi laakiin anigu ma garanayo saddex nin bay ahaayeen shanta baa loo qabtay laakiin marka anigu hargeysa ma jiray oo joogay wax go'aana ma soo saareen marka hargeysa ma jiray wala qabtay adigu xilliga wax weeye xasuuq dhacay inankii ka badbaaday waa kii BBC oo sheegay yiri Ibrahim Canjeex baa ka dambeeyay dilka maadaama guddi la saaray guddidaas wax xidhiidh ma kula soo yeelatay adigu se ma tagtay goobihii cadaaladda si aad isaga dul qaado meeshii wax yaala dhiig baa yaala dad la gumaaday baa yaala waxaan ku sheegay warbaahintii baa qaaday waxa la yiri waxa ka dambeeyay Ibrahim xilligii dawladda Maxamed Siyaad Barre jirtay ma isku dayday ama ma tagtay goobihii cadaaladda oo jidbax ma u doonatay ama wax weeye ma tiri hal cadeeyo inaanan anigu ka dambeeynin guddidaas ma la kulantay taariikh goorma marka ayada horta ragay 17 bishii 7 1989 bishii 8 aakhirkeedii aniga hargeysa la ii bedelay بدل ما هي ديبتان بهاي ساق لي ديبه يدير لها حكم مرخاتيا احمد جامع نيك احمد جامع يركي دانيه احمد جامع بوتان
يعني ما ريحان ويا وحي نين كان وحوش قوين بكره لقى ساري هرجيسا لو ودا قضيالك إساقة أحمد جامعو نين كان تس أحمد جامعو جوجا ضروري سوما هرجيس جوجا هرجيس جوجا أحمد جامع ويتي نين كان تس قضياش إساقة دنبي وسنجرين باللو إيديي هرجيسا لو ودا سير لو قدرو أحمد جامع مقعد سنكوب لناي ما دام أمد سنكوب حياة جامع مالك وايد لكن ما نهرين هذه سنة لكن ما نهرين بس جوجا وأنا عكرت أعطتكم إسكسة والحسناء إذا لقيت جي ما عكرت لكن أحمد جامع ودي أرنتها هاي هرجيسا اللي يدري مال عدالة لو قصوا هذا القاضي شنتا إن رجع إلا قبتي على المغرب رجع برناء هرجيسا هو رقبت وحي كودن بيين رجع سألوه كشري ذلك وحن كسر النقدي صدق بلاد كهر مركي دولة بربوري سأل النقدي عنه بالاستال بنكشري لا بلاد بنشوفي بارتين لقى حي بارتان أرنتان أنا باربا وحي يجور رسي نروبي مركان تجوا يجور رسي بارتان أنا باربا أيوه فضي بقى way haddaynu u soo noqono su'aashan kale maxaad ku odhan lahayd haddaad la kulanto qaraabadii iyo dadkii dadkooda la xasuuqay haddaad la kulanto maxaad ku odhan lahayd horta waxaan leeyahay nin kasta oo gacan ku dhigla ah oo ummadda Soomaaliya xasuuqay waa lacnadii Allah ku rido ilaahay lacnadiisa ku rido aniga kula hadlaya wiilkaygii baa la dilay 9 bilood markii la haystay markaan soo qaxay injineer hawlgii baa dishay Salmaan baa helay ka soo dilay روحي أقول لك ما لقيت لي ده اللي قال لي ملايين بلا أما كفر وقوي اللي يقول لي أما هرجيس اللي يقول لي رجع أنا أنكسر قاعد هرجيس وأنكسر قاعد هاي قضية إنه كهلنا قضية أنت تدخل سمر الله كسيو تدخل تطبع الله يمكن سمر لا سمر الله تدخودي وحوي كستينو سمرة ويهرت واحد عديد الشيء إن وحيد دري وحن كله هاي يحي قاعد كل له إلهي نعلد يا كل ثرت كان طول ما قسمني أنا علد إلهي يكون كذا يعني أمر هذا كذا dadka waa isaga daba tagi laga harin maayo aniga ana soo jeeday aan laga harin sida looga harin maxaa yeelay anigu Nairobi markii la dacwooyay maxkamadda Kenya tagay maadaama aan garsoor dalkeena ka jirin maxkamadda Kenya tagay حتى جالية إساق أن تجي ونروبي كنت الله وحيل السعودي محمود وحيل السعودي محمود عمر ساجع عمر محمود يرد إلى السعودي عمر محمود يرد إلى السعودي جالية إساق عمر كانت تجي وقال لي هي أنت تعوق يقبضها محكمة هاتي ماضي BBC رأي ورستي وحنكو يري نكي تعوق يقبضها وحي ورستي محمد عدو هذا المحمول أي عمر قراد باكشوي يوسف قراد وحاري عندي دعوة يقبطها أرنت لان كهذا معي أنا والجود دعوية أنا أمريكا وصعد اللي دعوية محكمة حتى ما كان كوري حتى قال كأي أمتها يعني دعوية نفتي سي محير الدم أنا قيوم أكو زاري سطح شارع محكمة ويرتي وحويري ما إيمان هي يمول تري مريكا كانوا كبريوي قبل دي وأنكرتي قبل 4 هاي ترجمان كهاي أو كاثي خبصتي ما أنا دعوين بيتري والذي ترجمانا الله إيش يكثر وحير أن الشيء وأنا التعويل هي وأنا شغال أنا كيري هي وحمر انتاس ونيروبي انتاس محكمة أنت محيري سوالها قرصور كمجرو هذه قرصور تشيلها سؤالي ما كان شوقلها أقدر تور قرصور كان تقلها واي أنا وقصو قدبنا هذا مسؤولية حسوق أن سعاد إن عسكر ردو مرنا ما كفكرتي أما بحالكي ما كفكرتي إن هرتكتو هيئتها عدالة سومالان ee hargeysa si aad u soo afjartay eedan ku dul taala ee lagugu eedeynayo Human Rights Watch baan la kulmay Human Rights Watch waxa la kulmay Amnesty ninka Human Rights Watch oo qaabilsan bariga Afrika Martin Hill baa la yiraahdaa waana u diray waan la kulmay niman isaaqay u dacweeyay Eldoret markaan joognay nimankii maxkamad baa ii furan ii sheeg baan ku yiri أنا كم هايستوي رج مراح تك هذا الكانوا هايستحرق جاس لكن هذا اللي قاعد وشد قاعد بصير هي ما أفتني البال لكل ما يروح يوم مرة دوش أمنس أورجانيزيشن أو راقم دري شو أقدر ثيمة بقول له وحالة قاضي ورئيس ما لقى قاضي سومالي عندي مقرسي تطبعت المسؤول بسؤالين كواي هذين محمد ظاهر بوجا يوني تي في ما جواب هي غفل ما جواب هي ما هي وحول ما هي وحول ظالم الموي وحول الموي ciidan dhisan oo talis leh oo dhisan hawl ay furiyeen oo taliyahooda furiyay oo ninkii furiyay aan sheegay anjax anigu soo ku korreel banaay dawladda amray anigu hal taangi oo xarayda kamid amar basiin kar ka baxo irid ma ana siin karin amar hal taangi oo xarayda kamid
haddii aan wax diidahayo markay leedahay hargeysa reer waqooyi ho maxaan u diidi waaya anigu askari baana meesha markaan imidna muwaajaha ayaan sameeyey si aan dadkaa loo laynin waana joogaan dadkii hadda waxay la aamusan yihiin ayaga ilaahay la hortagi doona berrito su-aasheeda ugu dambaysa intaanan u gudbin waraysigan waxaa qaaday cabdirasaaq cismaan fadal oo booqasho ku jooga dimashq dalka suuriya ciddii daawataa ibraahim garbixiisa uu leeyahay waxa weeye jidbixiyaan ahay haddii ay ku qanci waayaan xidhiidh bay la soo samayn karayaan halkaa uu joogo ciddii waxaan ku darayaa aan u soo daadego ibraahim su-aasha ugu dambaysa aan weydiinaya waxa weeyaan ibraahimow maxaad leedahay dadkan ku daawanaya ama maxaad u soo jeedinaysaa inta ku daawanaysa iyo inta maqli doontaba waxaan ummadda soomaalida u soo jeedinayaa waxaa la igu sameeyey dulmi aan dhicin qarniga iyo labaatanaad iyo kii labaatanaad midna aan dhicin maxaa yeelay saan meesha ku imid waa idinka sheekeeyey wixii aan ka qabtay intaan joogayna waa tii la igu dilay oo hargeysa la igu bedelay oo la yidhi arrintoo dhanba qaylada ninkaana fashiliyey waxoo dhanba markhaatigeed baa jooga waa kure daaniye yaa la yidhi uga odayaasha ninkaan ha warramay ummadda waxaan u sheegahayaa kuwa wax dulmin haya ilaahay baa wuxuu yidhi xadiid qudsi habaan u malanhayaa addaalimu fii darka alasfali min annaari ilaahay buu la hortegi wax is dulmin hayo anigu sanadkii dhowtaan xajiyey banka carfo markaan taagnaa cid walbaan cafiyey maxaa yeelay ajar baa igu jira wax walba iska cafiyo laakiin taxqiiq arrintaan marna ka hareer maayo marna nin wax igu sheega maxaa yeelay sumcad xumo iyo sharaf xumo inta igu sooyeen baa igu filan adduunka ay geliyeen cid walba canjeex baa laaye war kuwii laaye baa laaye mag dhahaan waaba joogaan iyagaa laaye yaa ciidanka xukumay hadday se qabiil leeyihiin anuu ogaaska mareexaan baa ogaasku qabiilka ma amra horta ma amri karo waan maranaya warsaan ku laayay anugu sida aan ku laayay ha ii sheegeen ma amray oo ciidankan amar meesha ku keenay ma gacantaydaan ku dilay keliya markii meesha aan difaac baan sameeyey aan dadka inaan badbaadiyo oo aan mid aan ku dhintay markii dambe oo la yidhi reer waqooyi hooya ninkaan ilaahay laga bixiyey ragaan meesha uga soo kacay wax micana kama noole meesha lagu laayay taas markeedaa la isaga imaan doonaa waxaa weeye ha ii sheego sida aan ku laayay adinku hadda ma ii sheegi kartaan sida aan ku laayay dadka bal ii sheega ciidanka ma xukumin ma howlgelin karin gacantayda kuma dilin oo raggii lagabcayr baa dilay korreel lagabcayr iyo diyaar xirsiyaa dilay taa dib ugu noqon mayno maxaa dadka leedahay baan ku yidhi waana gebagabadii waxaan leeyahay horta ilaa iyo maanta dilkii soomaaliya waa socdaa laakiin kuwa dadka laynhaya adduun iyo aakharaba ayaa ku ciqaaban maxaa yeelay qof islaama qofkii nafta ka gooya ilaahay kama cafiyaa liya dembi kasta waa cafiya laakiin ilaahay kama cafiyo waxaan leeyahay dilka ummadda ha iska dayso ha islaynayso dilka ummadda ha iska dayso intii horena ha laga xisaabtamo oo si aan loogu noqon ninka dilhaya isugu degdegin ha lala xisaabtamo dadka laayay iyadoo si run loola xisaabtamayo ha lala xisaabtamo maxaa yeelay qof Soomaali ah oo waxtar lahaa oo shaqayn lahaa qudha ka jaray marka waxaa weeye taana waa aan daba socda oo waxaan leeyahay yaa laga harin dadka laynhaya kuwa dadka dulmahaya waxaan leeyahay ilaahay baad la hortagaysaa dulunkiina axmed daahir wuxuu goobjoog ka yahay kulankan waana guddoomiye ku-xigeenka jaaliyadda soomaalida ee suuriya kolley wixii ibraahim halkan kaga warramay iyo waraysigii wax weeye wuu arkayaa halkaa waxaa fadhiya isaguna xuseen xasan oo isaguna nin ganacsada ah xuseen cali maxamed oo nin ganacsada ah halkaana waxaa fadhiya xuseen xasan oo isaguna nin ganacsada ah marka waxaan filayaa waraysigeenni codsi kaliya aan ku soo jeedinaya cabdirasaaq ka haray arrinta ilaahay baan kugu dhaashay waxaa weeye labada nin oo goobjoogka ka ah nairobi markii ninkii baroonka warramayay mid waxaa la yidhaahdaa faarax xaashi norway buu hadda joogaa faarax xaashi waa nin mareexaan oo reer diino ah faarax xaashi baa la yidhahdaa qolo faarax xaashi waaya waa nin mareexaan oo reer diino oo reer siyaada diina kan kale xundubi baa la yidhahdaa xundubi asna waa nin asna reer diino oo mareexaan oo waxaa la yidhahdaa reer dalal weeye asaguna xundubi baa la yidhahdaa labada norway joogaan waa saddex raashin dadku waa shaqaynaa Soomaalida markii ninku ka shaqaynayay baroonka waday oo ka sheekeynayay markaan joognay qabriga ninkaan ku xabaalaynay oo ninku warramayay aadan gabooy markuu warramayay laba inuu joogtay weeye
waxaan markhaati lahayn tilaabo kasta markhaati lahaa meesha waraysigeena halkaasaynu kusoo gabagabanaynaa waad mahadsantahay ibraahim cali barre guuleed daawadayaal ibraahim waraysiga kadib wuxuu ii sheegay in kolkii dadkaa la laayay waagu baryey isla markaana lagu amray sarkaalkii haystay xerada dhanaane inuu aaso dadka sarkaalka oo uu naanaystiisa iigu sheegay faataco waxa uu ii sheegay inuu ku nool yahay dalka Denmark isla markaana uu hayo xog arrintan ku saabsan welibana uu og yahay halka meydadkii dadkaasi ku aasan yihiin baaritaan aan galay kadib ibraahim sida uu waraysiga ku sheegay wuxuu halkan kaga hadlay laba markhaati oo uu markhaati u soo qabsaday haddaba waxaan baadidoon u galay labada nin ee uu markhaatiga u qabsanayo ee la kala yidhaahdo xundubey iyo faaraxaash oo labadooduba ku nool magaalada Oslo ee dalka Norway xundubey si kafoola ayaanu la kulmay waanu ka gaabsaday markhaati furka isagoo oo si kooban iigu yidhi ma xusuusto hase yeeshee faaraxaashi nin baa noo dhaxeeyey waxa aanu ninkaa ii soo faray in ibraahim dad badan oo bahda warbaahinta u badan u soo diray muddo kala duwan arrintaana aanu markhaati ka furayn xilligan daawadayaal sidoo kale wuxuu ibraahim waraysigan ku carabaabay rag dhowra oo uu sheegay inuu ka sii daayay habeenkaa gacanta askartii xasuuqa geysatay waxaa ka mid ahaa raggaa uu ka sii daayay askarta habeenkaa raggan ay ka midka yihiin xuseen faarax cadde xuseen cibraan injineer food xuseen dheere haddaba waxaan baadidoon ku helay xuseen cibraan xuseen wuxuu ahaa nin baaxmushtar ah oo deganaa xaafadda buule xooge isla markaana halkaa ku lahaa dukaan iibiya qalabka dayactirka baabuurta mar aan kula xidhiidhay khadka telefoonka isaga oo jooga dalka Denmark oo aan arrintan wax ka weydiiyey waxa uu ii sheegay xuseen in ay dhab tahay oo uu ka sii daayay mar dambe oo haddana loo soo dhacayna inuu ka reebay haddana ayuu ii sheegay ibraahim waxa kale oo uu ii sheegay xuseen in inama la joogay oo iyagana gaadiidka la saaray uu ka codsaday in loo soo dejiyo iyagiina uu iga soo dejiyey mar aan weydiiyey xuseen in uu aqoon hore u lahaa ibraahim canjeex iyo in kale wuxuu ii sheegay in aanu aqoon hore u lahayn hase yeeshee in su'aalo la weydiiyey su'aalihiina uu ka jawaabay haddaba daawadayaal arrintan waa arrin gundheer baaritaan badan dabagal iyo xaqiijin u baahan hase yeeshee qaybtan intaas ayaan ku soo afmeerayaa